Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Afla Academy. Today our lesson is all about the vowel sound with short and long sounds. Casharkii kan ku horreeyay waxaan soo barnay vowel sound, aan soo barnay iyo consonant sounds. Waxaan soo aragnay qaababka ay u kala baxaan, ayaan soo aragnay inta ay ku kooban yihiin. Waxaan dhahanay consonant sound waxay ku kooban yihiin 21 halka vowel sound ay ku kooban yihiin aan dhahanay 5 xaraf. markii isku darana guud ahaan waxay noqdeen 26 xaraf. laakiin muuqaalkani maantadani waxaan fiiri doonaa insha Allah dhawaaqa markii lagu dhawaaqayo vowel sound ama shaqalku yani qaabka loo kala dhawaaqo ayaan fiirinaynaa. mid wuxuu noqonayaa long sound, mid wuxuu noqonayaa short sound. channelka dadka cusub tahay subscribe saaro si aad u hesho casharo xiiso leh. short sound iyo sidoo kale waxaan u kala saari doonaa long sound ayaan u kala saari doonaa. markaan leenahay short sound and long sound, muhiimadu waxaa weeye dhawaaqa ayaa muhiimada. waxaa jirto Ingiriiska markii lagu dhawaaqayo xarfo ay qaadanayaan dhawaaq culeesa, iyo waxaa jirto xarfo qaadanaya dhawaaq daciif ah ama ay gaaban masa dheer. So markaan leenahay short sound, yani qofku markuu ku dhawaaqayo ereygaas wuxuu u dhawaaqaa mid fudud ama mid abbreviated ah ama mid gaaban oo short ah. laakiin markuu ku dhawaaqayna mid dheerna oo long sound ah waxay qaadanaysaa at least seconds ayay qaadanaysaa. laakiin tan inta badan ma qaadato second, badanana waxaa israaco 3 ama 2 eray ayaa inta badan israaco. mostly meesha ugu yar waxaa weeye 2 eray ama 2 letter ama 2 xaraf ayaa inta badan israacdo si u noqdaan eray dhameystiran. So markaan leenahay yani isha long and short sound aan kala fiirno markaan. So for example here now we have the short sound. short sound ku maxaa ka mid ahaan kara markaan joogno short sound maxaa ka mid ah. erey short markii la leeyahay waa gaabanaansho, waa short waxaa weeye the opposite word of long. yani waa iska soo jeeda soo waa 2 eray oo inta badan iska soo jeedaan. marka saa u fahmo marka tusaale kaleeto short yani ereyga yani wuxuu u kala baxaa sound u kala baxaa wuxuu kala baxaa u. ni laazima 5 xaraf oo meesha nooga qoran in ay sameeyaan short sound. short sound say ku sameyn karaan marka. short sound waxay ku sameyn karaan for example now ereygan oo kaleeto ayaa waxaa la sameyn karaa ama la dhisi karaa erey jumlad ama word ka bilaabo a. sidoo kaleeto waxaa la sameyn karaa waxaa la raadiyaa letter uu ka bilaawdo ama word uu ka bilaawdo sidoo kaleeto waxaa raadi kartaa markaad joogto letter ay ka bilaawdo ama word uu ka bilaawdo sidoo kaleeto o markaad joogtana waxaa la rabaa inaad raadsid word uu ka bilaawdo o, and u markaad joogtana waxaa la rabaa erey uu ka bilaawdo u. say u noqdaan marka short word ama short sound words. Yes. For example now, like also this one, the same as ayadana waa isla sidi ayaa la rabaa inay noqoto because waxaan rabnaa in aragno mid dheer iyo mid gaaban. waxaan rabnaa in aragno mid long form ah iyo mid short form ah ayaan rabnaa inaan ogaano. So for the short sounds, here we have the 5 vowel sounds. For the long sound, we have also here the 5 vowel sounds. marka say u kala qaataa marka haday markaan sharxay eedan waxaan dhahay waa inaan helnaa erey uu ka bilaawdo a at the same time very short. like haddaan ama ape or very short ape
or very short. waxay ka bilowtaa a vowel sound and then markii aan ku dhawaaqayno waxay noqotaa a. Like also we have arts. We have arts. Very short. Arts. Arts. Very short. Like also here, e markaan joogno waxaan haysanaa egg. 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 Very short. Egg. Very short. Sound wave waxaa waye egg. Waa ku dul istaaga. Egg. Aan leedahay. Haye. Meeshan tan aan ka haysano egg like axe. Intan aan haysano egg. Waan arki doonaa intan waxaan isticmaali doona. Okay? Like here we have ink. Like for example we have what? Ink. 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 Waxaa weeye waa qad. Ink. Waa qad. Ink. Like also we have eel. 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 You see? Eel. Eel. Ink waxaan dhahnay waa qad. Eel waxaa weeye xanuun. Okay? Oh, like we have ox. Oh, like for example we have what? Ox. 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 You see? Ox. You we have unit. 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 Egg. Ox. Egg. Ink or eel. Ox. Unit. Okay. For example here, markaan joogno long sound aan firo marka. This one, dhawaaq dhegeysinimadu waxaa weeye dhawaaq way. For example here we have apparent. 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 You see? Apparent. We have also appear. 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 Yeah, some cases here we can also have able. Able waa raaci kartaa meeshan able, yeah? It's also short. You see? Appear, apparent. Appear waxaan kaloo dhihi karnaa yani wax soo muuqasha. You can say what? Appear, soo muuqasho. Okay, like in markaan joogno here waxay noqonaysaa like we want long. Waxaan rabnaa long sound. We say elephant. 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 Maxaa waaye? Maroodi. Elephant. You can also say expensive. 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 qaali soo ma? You know? Waa long sound. Yani waxaa weeye eray soundgiisii ay adag tahay mas ay dheer tahay. Elephant. meeqay qaadanay waqti ay qaadan kartaa soo ma? Expensive. waqti ay qaadan kartaa sidoo kale. Like here we have we can say elimination. Sorry. Industry. Industry, yeah? Industry. 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 maxaa waaye? warshad. Industry. warshad. waxaa kala isticmaali karnaa independence. Independence. Independence hurriyad. qofka markuu hurriyad qaadanayo ama yani gumaysiga ka horoobayo ayaa waa independence. Industry. Independence. You see? Waa long format. Long. You see? Waa very long. Haya. We have also here. Okay. We have O. O markaan leenahay waxaan isticmaali karnaa ostrich. Ostrich. waxaan isticmaali karnaa ostrich. Ostrich. Very long. Ostrich. Ostrich. Yeah. Onion. Onion. You see? Onion.
onion. Here waxaan ku dari karnaa open. Open. Very short. Open. Yeah. Onion. Yes. So ostrich waxaa weeye waa goryo. Ostrich waxaa la yidhahdaa this is a wild bird. It's a type of birds that's mainly found there at the bush or the forest. It's called ostrich. Yeah, it doesn't fly, but it moves faster as they ordisaa. Onion waa basal. Onion waa basal. Like also here we have use in here. You markaan joogno waxaa isticmaali karnaa umbrella. Umbrella. You see? University. Utilize. One minute. Umbrella, university, utilize. University waa jaamacad sooma. Utilize ayadana waxaa weeye waa isticmaal. So markaan fiirino marka dhawaaqa xarfahan markaan fiirino waa short. Short waxaa weeye gaabanaasho sooma. Dhawaaqa short maxaa weeye dhawaaqa gaaban. Short sound maxaa weeye dhawaaqa gaaban. Long sound maxaa weeye ayadana dhawaaqa dheer. No, qofka markuu ku dhawaaqayo waa very long, laakiin this one waa very short. Marka guud ahaan casharkeeni waxaan rabaa intaan inaan ku kala saaro. So I hope you have understood well. Inshallah waxaa inoo diyaaraa next lesson.